chapterkeena waxa loo yaqaano measures of central tendency for ungrouped data cabirada u janjeera dhanka yani udub dhexaadka ama dhexdhexaadka daatada annagoo u isticmaalayna xogta isticmaalayna ay tahay xog ungrouped data oo ah xog aan habaysnayn. We often represent a data by numerical summary measures. Badanaa waxaan xogta usoo bandhignaa qaab ama cabiro koobaya xogta si tiro ah usoo koobaya ayaan isticmaalnaa ama usoo bandhignaa xogta inta ugu badan. Usually called the typical values. Badanaana waxaa loo magacaabaa sida caadiga waxaa loo yaqaanaa typical values ayaa loo yaqaanaa. A measure of central tendency. Marka cabir u janjeera dhanka centerka daatada ama se udub dhexaadka daatada cabir u janjeera gives wuxuuna siiyaa the center of a histogram. Wuxuuna siiyaa tusaale ahaan wuxuuna siiyaa dhexdhexaadka histogram. Yani markaan xogta qaab aan usoo bandhigno histogram ah centerka daatada waxay dhacdaa tusaale ahaan qaab histogram haddaan u bandhigno histogramka waxaan arkaynaa in aan helayno daato dhacda dhexbartanka histogramkaas taas oo u qaybisa graafka u qaybisa two equal lines waxay ama laba qaybood oo waxay u qaybisaa ama divide the data into two equal parts yani laba qaybood oo isku mid ah ayay xogta u qaybisaa. Graafka noocaas oo kale histogramka noocaasna waxa hore usoo baranay waxaa loo yaqaanaa symmetric ayaa loo yaqaanaa or a frequency distribution curve amase waxay qaybisaa tusaalahan frequency distribution curve sidoo kale waxay u qaybisaa laba qaybood amase waxay dhacdaa centerka xogta centerka ayay dhacdaa. This section discusses three different measures of center. Sectionkan marka ama qaybtan waxay ka doodaysaa ama waxaan uga hadli doonaa oo kale saddex qaybood ama saddex cabiraad oo central tendency oo kala duwan. Saddexdaas marka maxay kala yihiin the mean celceliska, the median tirada dhexdhexaadka ah and the mode iyo tirada ugu badan ee soo laalaabato kala tusaalahan saddexdaas ayaan uga hadli doonaa sectionkan. However, si kastaba ahaatee a few other measures of central tendency such as trimmed mean or weighted mean and geometric mean are explained in the exercises following this section. Si kastaba ha ahaatee casharka waxaa kaloo ku jira oo lagu sharxay waxa loo yaqaano trimmed mean waxa loo yaqaano sidoo kale weighted mean iyo geometric mean. Saddexdaas waxaan rajeynayaa inaan casharada soo socdo insha Allah ayaga naftigooda ay noogu imaan doonaan mid kasta haddaan dhahno hadda gooni u sharxayna waqtiga qaadanaysa laakiin waxay ku qurux badan tahay inaan mid kastaba gooni usoo qaadano sidaa darteed sida uu buugku sheegayana wuxuu kusoo qaadan doonaa ama ku sharxi doonaa qaybta exerciseka ee soo socota ee sectionkana. We will learn waxaan baran doonaa how to calculate each of these measures for ungrouped data. Waxaan baran doonaa sida loo xisaabiyo mid kasta oo cabiradan ka mid ah sida loogu xisaabiyo xog ah ama xog aan habaysnayn oo kale markaad haysatid. Recall waxaad soo xasuustaa from chapter 2 that the data that give information on each member of a population or sample individually are called ungrouped data. Waxaan soo xasuusanaynaa chapterkii labaad haddaad xasuustiin waxaan kusoo baranay wax loo yaqaano ungrouped data. Marka xog kasta amase xog kasta oo tilmaamaysa amase xog kasta oo yani sheegaysa xubin kasta oo population kamid ah amase sambalka kamid ah si shakhsi ah u sheegaysa ayaa waxaa loo yaqaanaa ungrouped data. Yani xogta intaanan sameynin marka koowaad aadan qaab listi ah oo ascending ama descending order labada qaab nooc rabta ahaatee aadan xogtii kala hormarinin oo aadan qaab listi ah oo diyaarsan oo order form haddaadan xogta u diyaarin oo aad u haysato qof kasta haddaad tusaalahaan aan warqad ku haysto qof kasta magaciisa iyo natiijadiisa oo kale tusaalahaan haddaa haysto ama natiijadii isku dhex yaacsan aan haysto oo kale xogtaas oo kale maxaa loo yaqaanaa ungrouped data. Waana hore usoo baranay whereas grouped data halka grouped data ay tahay grouped data are presented in the form of a frequency distribution table. Halka xogta habaysanna loo soo bandhigo qaab ah frequency distribution table qaab ah ayaa loo soo bandhigo.